بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waad salaamantihiin. waxaan jeclaaday maanta inaan ka sheekeyno web browserka amba web browserka laga garay internetka. waxaa jira Internet Explorer iyo waxaa jira Google Chrome. dhammaantood company iskale Google baa iskale Chrome-ka. waxa la yidhi sida la isku raacay safe maaha sababtoo ah wuxuu sameeyaa wax la yidhaha data collection amba data collection. informationkaaga oo dhan ayuu ururinayaa. midda labaad haddii aad tidhaahdid wax daawo ama YouTube aad ka gashid xayeysiis baa kusoo gelaya. marka company ayaa waxay sameeyeen web browser la yidhaha Brave. marka waxa weeyaan waa website-kan waa noocan waana aad buu secure u yahay sababtoo ah adblock wuu blockeynayaa xayeysiiska. number 1 browser up to 3 faster than wuxuu ka dhaqso badan yahay Chrome-ka. talabaad wuu ka dhaqso badan yahay browserka. talabaad block advertisement and trackers. okay waxa dhan uu ka joojinaya that flow you are wrong. so kombaniyada Facebook Google waxa oo dhani dabagal ayay ku sameeyaan dadka website-ku galay xilligu galay wuxuu baadhay waxa oo dhan bay ogaanayaan. ta saddexaad faa'iido wuxuu leeyahay waxaad ka helaysaa reward for browsing. markasta ood isticmaasho brave.com waxay ku siinayaan lacag. taasina mar kale aan ka sheekeyn doonaa. marka faa'iidooyinka badan buu leeyahay han tijaabino. marka hadda waxaan tijaabinayaa Google Chrome waa isku bardhiganaa. hanini tuso wax yar Google Chrome aan furo. kani waa Google Chrome-ki saad u jeediin adblock baan xaggan ku sameeyey meeshaas saad u jeediin. marka adblock haddaan ka dhigo for example disable haddaan ka dhigo amba right click idhaahdo on idhaahdo options aan tago macnaha waxaan ujeedaa adblock haddaan joojiyo oon any YouTube galo xayeysiis baa iska soo baxaya. okay youtube.com iminka adblockgaasa isticmaalaya waxay joojisay buu ku leeyahay 2. haddaan markaa idhaahdo ka joojiya markaa. okay adblock baan odhanayaa waan ka remove gareynayaa. remove from Chrome. are you sure? yes baan leeyahay. okay any website aan galno markaasi any YouTube aan galno for example example aan isiiyo let's say waxbaan iska daawananaa YouTube. Hey folks, Token Vision here. I hope you guys are all doing well. okay aan ku qoro website waxaan ku qorayaa finance.yahoo.com. hadda waxaan arkanaa waxa dhaca. okay imiga xayeysiisyo badan baa ku jira kana iska socda aad u fiirsanaysaa. okay u fiirsada halkaas
haddaan markaa brief aan galo, let me open my Brave. Brave baan furay, same website xaggan daawanayaan ku koobiyeynaya. waxaan tusayaa markaa differentiga u dhexeeya. Okay, haddaad isbarbar dhigtid xayeysiiskii ma socdo Brave markaa isticmaalaysa, u fiirso kana xayeysiiska automatic buu iskaga furmaya. aan weyneeyo wax yar si aad u aragtiin. wuxuu yihi waxaan blogareeyey item blocking, cross site tracker block, waxaa dhan buu blogareeyey. Okay, saa darteed markaa waxa wanaagsan in la isticmaalo Brave. xaggan ka isticmaalinaya waxa la idhaahdo Google Chrome. Okay, waxaa kaloo benefit leeyahay, maxaa la idhaahdaa reward lacag ay ku siin karaan, oo waxyaalaha daawatay xayeysiis haddaad daawato iyaga lacagta toos kuu siinaya. kuwaasna insha Allah waynu ka sheekeyn doonaa. waxyaalahaas ugu fiican yahay. Okay, lacagtayga toos ku siin doona. So waxay leeyihin wax la yidhaahdo estimate pending, lacagta lagu siinayo. For example, waxa lagu siinaya loo yidhi 0.30 but oo translated sheegu yahay $0.08 for example. waa haddaad xayeysiiskooga daawatid. markaa benefitku leeyahay waa secure. only benefitka uu leeyahay ee ugu weyni waa secure. wuxuu kuu sheegaya xaalihii u dambeeyay daawatay. maxaan ku idhaahdaa Brave reward wax la yidhaha buu leeyahay, halkii lacagta intuu ku siiyo. markastoo websitekan aad isticmaashid lacag baad helaysaa. historygaagu ku tusayaa. bookmark buu leeyahay, meeshaad kasoo dhaloon karaysan kartaa haddaad doonaysid. marka kani waa iska soconaya xayeysiiskani. saas ayay ku kala duwan yihiin. Okay, marka haddaad rabtid ood jeceshahay ood ka heshid, waxaad tegaysaa brave.com amba linkigan ayaan inii soo dirayaa. linkigan isku dhufanaysaa. waa promo link. markaad ku dhufatid download baa ku dhufanaysaa. marka uu ku soconayaa maxaa la yidhahdaa Windows. waxaa kaloo ku soconayaa Mac OS, Linux buu ku soconayaa, Android phoneskan uu ku shaqeynaya. marka advice-kaygu waxa weeyaan inaad isticmaashiin Brave browser. wuu ka wanaagsan yahay Google Chrome, wuuna ka dhaqso badan yahay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. linkigana waxaan hoos baan iniigu soo descriptionka ayaan inii dhigaya hadduu ilaa idhahdo insha Allah. daawasho wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.